وحقيقة وحوي حدتي على مناسبة متعفرك صاحبة وعيد رجيري وأنا على وضوء كعامة هنا هذا كيرانه أيضا أنا هاي خطرة يكون قريبين كثير فرق waxyaalaha ururka laga bulshadayay sidii ugaas maxamed oo kale to arimaha colaadaha iyo dibulshisiinta waxaan rabaa inaan hal eray ka iraahdo midna waxa weeye dowladihii hoose ismahooda degmooyinka hadda xorta arimaha dibulshisiinta colaadaha jira runtii ilaa 20kii bari oo ugu dambeysay waxaan ka mid ahaa waftigii madaxweynuhu hogaaminayay waxaan marnay dhul aad u fara badan oo inta badan ay tahay gobolka mudug waxaan ka soo bilownay degmada Cadaado soo marnay Galinsoor ilaa iyo afar waaqaan gaarnay ilaa hubiyaan caawa joogno runtii muddada iyada ah annagu meelaha colaada qismiga ay ka jirto waxaan la aqoonsanay galmudugga laba beelood beel waxay ahayd deegaanka bandiirada ku aadan oo degmada galdoog dadka ka soo jeeda iyo degmada bandiirada dadka ka soo jeeda muddada dagaalada u dhexeeyay dheer arintaas waa u socotaan oo bisha 10keedii bisha 12keedii waa si fiican loo soo gabagabeeyay dibulshisiin fiican baa laga galay waxayna lagu gabagaboobay doontaa bisha aakhirkeeda haddii alla idmo degmada galdoog meesha kale oo calaaqda rasmiga ah ee muddo dheer 40 sano ay ka jirtay waxa weeye aaga Galinsoor iyo dhabada inta u dhaxaysa iyo beelaha halka dega iyadoo waxaa noo qorshaysan bilowga bisha soo socota oo Juulaay inaan ku fariisano hadda qabaqaabadeedii halkaan jooga oo iska mid ah General Gordon iska mid yahay baa bariba bixi doona oo arrintaas qabaqaabadeedii gali doona haddii alla idmo meelaha kale runtii oo colaadaha hadda sida ugaas u ka hadlayay waa ka warqabnaa maaha colaado beeleed maaha waa colaado u dhaxeeya dad baraago iyo ceelal meel ka qodaayeen maaha colaad qabiil oo safayna maaha iyadana waxaan rajaynaynaa markaan aan gaarno waqooyiga galmudug arrin iska dhammaan doonta horey waxaan u ilaalinay intii dhageysatay galmudug waxaan u ilaalinay markiiba waxaan aragnay intii aan ku jiray hawsha wasiirada la dhaarin waxaa soo baxay dhowr meelood in gacanka hadal ka dhacay oo ay ka mid tahay qalanqalle oo ay ka mid tahay farankifood ay ka mid tahay waxaan ogaanay inta badan dagaaladaas waxay saameynayeen meelo buqcada oo luqadaha iyo ama ceelal waxaan ka soo saarnay inaan meel dambe oo ceel ah la qodi karin aan baraad aan ogolaansho aan dawladdu ay ka haysanin weli dadku waxay u barteen dawlad la'aantii inta aan safarka ku jirno gabcays badan baan maqlaynay laakiin waxaan rajaynaynaa iyaguna inay muddo gaaban ay ku soo gabagaboobi doonaan ma jirto runtii colaad laga walwalo oo maanta ka jirta galmudug runtii ma jirto meelaha ay ka jirtaan qorshahoodu waa loo dhamaystiran yahay waxaa kale oo aan rabnaa noqdada kale aan rabaa inaan ka hadlo waa arrimaha maamulka lixda degmo oo xorta ah 3 kamid oo ay hobyo ku jirto waxaa nooga socda inaanu ka dhisno maamuladii deegaanka oo haddii aan kuwaas la dhisin oo aan la samaynin runtii ayna suurtagal ahayn in sharciga iyo kala dambeyntii amnigii ay ka hirgalaan dhulka waxaa arrintaas nagala shaqaynaya dhammaan siyaasiyiinta galmudug oo ka soo jeeda deegaamada Cadaado iyo gaalkacyo meel fiican bay marahayaan kanna wixii bari laga bilaabo waxaan jecel lahay inaan habraacay anagoo raacayna aan hore u gallo waxaan jecel lahay muddo ka yar 6 bilood 4 bilood inay noogu soo gabagaboobaan maamuladii deegaamadaas oo aan isleenahay waa saldhigga nabadgelyada saldhigga horumarka saldhigga muxuu ah wada noolaanshaha iyo midnimada saldhigga joojinaya wixii muxuu ah khilaafaadka iyo dhibaatadii deegaamada ka jiray waxaan kusoo gabagabeynayaa caawa waxay la tahay reer galmudug dadka Soomaaliyeed oo dhan guul bay u tahay in la daafuro dekada hoobiyo oo caawa cid maqan ayna jirinin wax garadkeedii madaxdeedii salaadiinteedii qof ka maqan uusan jirinin
waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay subxaana qaadir rajadana iyo himiladana inuu nagu guuleeyo waxa caawa meel kastaba hala joogay dadka galmudug ka abtirsada iyo dadka Soomaaliyeed ay isha ku hayaan waxa weeye dhismaha iyo dhamaystirka dekada tan waxaan filaynaa waxa weeye dad badan inay sabrays ku tahay madaxweynahanaga sidoo degdeg ah oo ka muuqatay runtii himiladiisa inuu caawa halkaan isugu keenay galmudug warniyo madaxdiisii waxaan rajaynaynaa 6 bilood ka yar in loogu dhammaan doonto annaga waxaan naga go'an inaanu amnigii iyo maamulada dhisidoodii iyo meelaha shaqooyinka ay ka jiraan muddada ka hor inay naga soo gabagaboobaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.